cibaada aynu leenahay iyo shaqo aynu shaqaysanay janno ku geli mayne ilaahaynu naxariistiisa inoogu naxariistaan ilaahay ka baryaynaa walaalayaal wax kale aynu ka wada hadlaa maanta ma yaalaan waa maalin farxadeed farxad baynu ku wada yeedaynaa waxaynu u baahannahay maanta halkaynu taagannahay inaynaan ka noqonin oo shaydaankii waaweynaba la soo fasaxay inaan dib u noqonnay inaynu halkaa ka sii wadno amni baynu u baahannahay ilaahay cid kasta oo xumaan inala damcada ilaahay iyada ha ku ekeeyo ilaahay iyada ha ku ekeeyo ilaahay wanaag baynu isugu nimid wanaag ah inoo aqbalo ilaahay midnimadeenna ilaahay ha quweeyo dad islaamaynu nahay islaamku xoog buu u baahan yahay ilaahay midnimadeenna ha quweeyo waxa muslaanka dicifka ka dhigay waa tafaraaruqa ilaahay tafaraaruqa hay naga saaro ilaahay quluubteenna hay soo aslaaxiyo ilaahay bogeena barcad hay sumariyo ilaahay colaad baynu ku jiraa gobolka lagu xantee ilaahay hay naga saaro ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay wuxuu xumaan nagu dhex jira ilaahay naga kor qaad ilaahay wadana kooma ku hoosaysan allah naga qorad allah naga kor qaado waxaynu walaalayaal isku waaninaynaa inaynu amnigeena ilaashano wax kale inaga xumi ma jiraan haddaynu amnigeena ilaashano iimaankeenuna uu sugmaya haddii iimaankeenu sugmana siraal mustaqiimkeenu qabsanayna insha Allah waxaan adeerin leeyahay oo kula dardaarmayna adeeran nabadgelyada shano adduunyada waa ogtihiin waxa digniin laga bixiyay Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo meel kastaba waa la qarxayaa baa leeyahay bal ilaahay baa ku dhaariyay dadkeena muslimiinta ee soo Soomaaliya halka isku nimi ninka xumaanada damacsane ama qorow doontay ama inuu ku qarxa damacsane muxuu ilaahay muxuu ka sugayaa kaas soo wuxuu ka sugaa cadaabun maaha ilaahay haynaga nabadgeliyo ilaahay isaga ha isku qarxiyo kii kasta xumaan inoogu maqana ilaahay isaga ha isku maqnaysiiyo ilaahay saasoo ka baryana ilaahay dadkeena walaalaha ah ee shaydaanku isku daray shaydaanu insiga ciida ka badan oo dhaxmaree ilaahay kaana ilaahay naga dhax saaro ilaahay naga saxro ilaahay hay noo soo hagaajiyo kan hagaagana ilaahay hay naga qabto qodan saxaafada iyana mid dardaaran siinayaaye halkan bay qaar ka taganoo waxay u tageen ribash baanu doonaynaa soo duubaynaa wali ma aragteen nin xumaantaydeedina adeer ka waantooba iska daaya bir rabadaan baynu ka soo baxnay ducaynu u baahannahay inaanu xumaan doono oo inu qofka hadalka xun daytayno iska daaya waxa ka wanaagsan inaa ka hadalka wanaagsan ku hadlaya daytaydaan taas ay fi aakhirada idinka wanaagsan ilaahay saasuu idinku naxariisanaya ciiseefkana idinku kuniya idina ka waantooba inaad dadka shaqo-shaqaysan oo xumaan ka doontaan waxa laga yaabaa inay dad badan dhibsadaan marka la xumaanta iska daayay waa amar uu inasiiyay ilaahay oo nabigeenu nagu dardaarmay inaynu xumaantana iska reebno wanaagana isfarro waxa aayad quraana ku jirta inaynu nahay ummadda ugu khayrka badan waxaynu ku gaadhnay waa xumaha inuu iska reebno iyo wanaagaynu isfarro waa arintaanu xumaha isfarayno aan wanaaga isfarro oo waxaynu walaalo ku nahay diinta islaamka aan ku walaalowno ka daalinka ee reerkiini aakhiro dhan ku raaci maayo qabriga kula gali maayo amalkaaga kula galiya isaga wuxuu sheego hagaaji taas ay lagu amree amarka wanaagsan far waxa wanaagsan aan isfarro siraal mustaqiim aan taabano wax baqooy nagu jira ma jiraan tan nabadgelyo darooga baqi mayno cidin waxayna yeeli karto aynu maanta isleena waxba idin yeeli karto inuu baqaynaa ma jirto laakiin inuu gudaheena dhibaato kale inama haysatee insha Allah gudaheena hagaajino